السلام عليكم كسو دواده برنامجka fanka karinta barnaamijkan hordhac hada idin kasii waxa barnaamij ah ku daawan doontaan xalqooyin kala duwan xalqadiisa koowaad caawa halkan ku duubeena waxaana ku daawan doontaan cuntooyin kala duwan iyo dad kala duwan insha Allah caawa waxa sameeysan doonaa cadas misir ama soup laga sameeyay lentil soup ama shorba cadas waxay kamid tahay cuntooyinka caafimaadka leh si gaar ahna bilaha ramadaanka ama xiliyadan hada ku jirno kala aadka loo isticmaalo dadkana ay u isticmaalaan cuntada ka hor inay appetizer ahaan ku afbilowdaan ama afbilow ay ka dhigtaan aad u fiican yahay caafimaad ahaan inta ku soo koobi kari caafimaadka iyo faa'iidooyinka laga helo cadaska misirtan uu ka sameeysan yahay inta badan misirta kalarkan orange-ga leh ee dadka badankood u isticmaalaan lentilka ama soupka magaceedana waxa waaye misirtan ay isticmaalayo birimo waxa inta ku heystaa oo ka sameyn doona cadaska qudaar kala duwan idin sharax markood meeshan waxa ii taalo hal xabayaanye oo aweyn yaayadaas soo jarjaray inta waxa iyaala hal xabo baradhe oo iyana soo fiiqa soo jarjaray intana hal xabo karoote meeshan waxa ka istaa hal xabo basalcad ama basal guduud midka jecesha isticmaali kartaa meeshan waxa igu jarjaran kabsar iyo toon sidoo kale saliid ku karsan lahayn maraqdiga isticmaali doono iyo cadaski ama masirti dhamaan intaana isku dardari doona qaabkay u kala horeeyaan saa isku dari doono dhamaan inta ku daawan doontaan isla socod wanaagsan marka koowaad waxa ku soo bilaabay saliida isticmaala waxa way sunflower xilwa waxa ku darsanaya marka saliid ku soo shubtay digsiga basashay basasha intay gaduudanayso iyo wax dhan la sugayo ma jiro hore waxa uga soo darsanay waxyaabaha kaleeto waxa ku darsanaya yaanyadi waxa ku darsanaya karootki waxa ku dareena baradhadi marka intaan rabo in hal mar isku wada shiilno kali ma loo kala shiilaayo hal mar ay dhan rabo in la isku shiilo wax biyo ku taabanaysid cabaar yar sugeena inta isku shiilmayaan waa u jeedin guys way isku soo shiilmeen baradhadii karootadii basashi yaanyada saa idin kugu sheegay waxa la rabaa inay hal mar wax dhan wada shiilmaan markay soo shiilmeen waxa ku soo darsanaya kabsarta iyo toonta kaliya jarjaran yihiin ma tunno waxa isticmaali doonaa maraq digaaga xilwa oo asagan hal xabe waxa kale ku darsan doonaa xawaajiga jecesha isticmaalaan xawaajiga isticmaala waxa xawaaji dhudhuubka oo shiidan iyo huruud oo iyadana sidoo kale qaadaha afkeeda xaajigi huruud isku qiyaas waaye kadib marka intaan isku soo darno isku walaaqno waxa ku darsaneynaa misirtii oo hal koobka shaaxa lagu cawaa qiyaas ahaanta misirta isticmaala waxa waa birimo saa hore idin kugu soo sheegay iyada ku darsanaya ma fahanteen waxyar markaas dhex galinay qudaartii iyo sidoo kale xawaajiyaasha carafta spiceski iyo misirtii hadda waxa ku soo shubanaya 2 koob oo biyo koob kale wada ku darsanayna soo waxay u baahan tahay waqti inaan siino daboolno sugno ilaa ay ka bislaanayaan bisel kaliya ma aha bisel waxa laga rabaa mutuutax yani inay baradhada dhan saas u kala go'oodo misirta dhan bislaato yani aad u bislaadaan dabka dhexdhexaad u geynay xoog mu dheereynaysid hada xoog u dheereysto waxa macquul ah in ayadoo qudaarta sidii rabo kuugu bislaanin inay hoos ka gubto ama digsiga kaaga dhago marka waxa sameeynaa dabka dhexdhexaad uga dhigeena waa dabooleena biyahana intaan kaliya ku ekaana waxa laga yaabaa inaa gadaal kaga soo darsado koob iyo half ama ilaa 2 koob oo kaleeto sababtoo biyo badan ay u baahan tahay markii suubka la sameeynayo soo hadda waa sugeena inta oo ka karkaraa insha Allah daawadayaal waa isku soo noqonay waxa uu imaanay suubkeeni ama shurbadii dabka noo saarneed oo si fiican u karkartay
dabka ka dabinaya marka koowaad sababtoo ah way bislaatay inay bislaatana waxa kaaga cad sida ay isku dhax gashay waa u jeedin qaadad markaas kor u soo qaado baradhadii wixii dhan waa isla burbureen kaliya waxa hadda muuqdo oo nool waa karootadana way aad u jilcday way bisishahay waxay u baahan tahay bas inaan hal mar blender ka dhex marino ama aashidno kadibna wuxuu noqonayaa suub biyo ah oo la cabi karo soo hadda waa soo shiideena maadaama si fiican ay wixii dhan isku bislaadeen waxa ka maqnaa nus saac ama 30 daqiiqo dabkan u gaabiyay biyo 2 koob ku daray markii hore ogeedeen 2 koob gadaal kaga daray soo nus saac complete ka maqnaa soo hadirtaan waa kana uu soo bislaaday waa soo shiideena oo isku soo noqonayna waa soo shiidanay suubkeeni ama misirti ama cadaski oo shorbada aan sameeysanayna maantay waxa rabaa inaan dusha kaga darsado dhadhan iigu sameeyso restaurant style na in saliidaha olive kala isticmaalo especially hadda aan saliida olive ka isticmaalayo waxa waay argan waana extra virgin olive oil oo waxay ka samaysan tahay olive ki saxda ahayd saliidana isticmaalena wax yar aanan badneen aadusha ugu darsanayna sidoo kale saliidan waxa u isticmaali karna suubka kaliya maaha waxa u isticmaali kartiin saladaadka waa lagu darsan karaa xumusto kale hada guriga ku sameysatid dusha kaga darsan kartaa sidoo kale hada rabtid ina cuntooyin iska ilaalisid saliida badan ama faatka badan oo cholesterol wax noocaas oo kale iska dhowreysid ama qabtidbo saliidan waxa ku darsan kartaa digirta waxyaabahaas dhan ku cuni kartaa healthy waaye waxay ka caawinaysaa in jirkaaga faat badan uusan gelin cuntadan ahaan sameeysanay suubka cabayna asagaaba caafimaad leh saa hore idinku sheegay especially xilliga ramadaanka calooshu ka caawinaa inay ku jilicdo sidoo kale wuu ku dharjinayaa cabaar yani wuxuu ku siinayaa tamar fiican calorieskiisana ma badno hadaa taa qof iscaateynaayo ama miisaan badan aarabin inuu qaato xilliyada ramadaanka suubka waa cabi kartaa waxa ku cuni kartaa roti brown oo kaleeto wuxuuna ka sameeysan yahay lentil ama misir af Soomaali ahaan Carabigana waxa waaya cadas وكان هذا واسوس ولاقنا سليدي ساسو كسو بحي او جدان ديار واي سليدي اسغي وخي دون واسكو ولاقay caraftiisa dhadhankiisa spiceskiisa wixii dhan u dhameystirayeen sa hore idinku soo sheegan waxa soo isticmaalnay birimo misirta birimo sidoo kale waxa isticmaalnay saliida xilwa sunflower ka mid ah ku karinaayay maraq digaaga isticmaalay isagana wuxuu ahaa xilwa waxa dusha kaga daran waxa waaye argan olive oil marka xarajeenaya inaad si fiican uga faa'iideysateen qaab karintan aan u sameeynay waxyaabaha dhadhanka qaybta ka qaadanayna waxay kamid ah productiga isticmaalayo mainka ama wax ugu muhiimsan xarajeenaya inaad si fiican u fahanteen aad ama santiin